ولا لواي مساد بحش الصيني سهدينا تتراهدو يا داي تراو برال كان مثال الصيا labaduba waa laba eray oo isku intii laakiin sida loo yiri ayaa kala gadisan ilaahay wuxuu leeyahay fala takhda'na bil qawl hadalka ha jajabinina hoos wax hunguri ka keena ninka wax walo gabadha ka midiba sanqadheeda baynu nidhi ilaahay quraanka muxuu ku tilmaamayaa quraanku muxuu sheegay fi suurati an-nur wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma cagaha iyo dhulka ku tumin baa la yiri oo cagatunkaasi rag u soo jeediya gabadhu qudubteedu rag way soo jeedisaa ilaahay baa wuxuu leeyahay dumarku iyo cagaha dhulka ku tumin idan waxaan leenahay hadii la rabo al-iffa hadii la rabo dhaqan islaam waynu meesha yimaada waalidka waxaan leenahay intaynu hablaha dawaar marin lahayn xishmad iyo dhaqanka islaamku uu barayaan barro oo ah inaynu inamadiyo habla kala soocno oo ah inay xijaabato asturkeeda qaadato oo ah aqeeda iyo diin iyo aakhira iyo wax dhowri karo qofkan oo xijin kara oo xisaam u ah inaynu barro oo qofkan uu naar ka fakaro iyo janno iyo sharaftidiisa iyo magaciisa uu ka fakari karo haddii akhlaaqdu ay qaabka u dhisanto bulshada akhlaaqdeeda la dhiso oo laga joojiyo TV-yada iyo qurunka iyo raadiyoyada iyo waxaan laga wado naagahan islulaya hooyooyin islulaya ku jira ma aha inan yar yani dhaqanku markuu xumaado xumaha marka dambe wanaag noqda marka hadlayo qofku inuu gabay tiriyo ama hees tiriyo ama caynkan waa adab waa luqa waa la tirin karaa laakiin tan la wade muusiga loo tumay horta hidiyo dhaqanka kuma jirto hidiyo dhaqan Soomaaliyeed muusigi ma jiro hadii lagu yiraahdo hidiyo dhaqan baa la nooleeyahay hidiyo dhaqan gaaleed weeyaan muusigu Soomaali gaalkii Ingiriisiga intii la socota bigil iyo waxa la tumaba ugu horeysay shacabkeeda ay tumi jirtay cagahay dhulku garaaci jirtay ma jirin wax la tumaa idan dhaqanna uma aha waa dhaqan gaaleed hidana uma aha waa hidda cid kale leedahay hidda muslim maaha waxa habboon in bulshada muslimka ah maamulka iyo dawladda waayeelka iyo dadka mas'uulka ah macallimiinta iyo dadka iskuulada jooga in xishmada iyo xayaaga dib loo nooleeyo hadii la rabo inay dumarkuna cafiifaat noqdaan raguna uu cafiif noqdo abba waliba uu jecel yahay inantiisu inay dhowrsanaato abba waliba inankiisu inuu dhowrsanaado inantiisu uu jecel yahay laakiin haddana wadadii lama hayo wada kale inuu ku raadacaynayna